وعن أول سنة استهلاك ساجرتان ونسوا دوادا برنامج كان يفرتن جورا وأنا قلت لك علي إن أنا كحصنو مركي كان كبر كيسنا وهجنكو هي جنرال محمد سياد بري أي ثلاثة ذلك الصومالية لو وريجين barnaamijkan oo aanu dhaliil iyo waxqabad wixii uu lahaaba aanu doonayno inaanu dhegeystayaasha Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddaba aanu kula wadaagno ayaanu ku soo qaadan doonaa taariikhii uu ka tagay jaal sareeye gaas Maxamed Siyaad Barre isaga iyo 24 nin ee baalasha u ahayd kacankiisa barnaamijka waxa isku dubaridka iyo diyaarinta gacan weyn ku leh waanu mahad celinayaa saaxiibaday Cusmaan Maxamed Faarax Caqiil oo waqti badan ku bixiyay sidii barnaamijkan uu hergeli lahaa iyo tafaftiraha raadiyo Muqdisho Mustafa Maxamed Ahmed Warcad yani go Cabdi Sanaale matan daacada ya barnaamijka idin soo saaray halkan idin kaga soo jeedin doona ku soo dhawaada barnaamijkaasi taariikhiga ah xisbiga inta wadaagga kacaanka Soomaaliyeed ama golihii sare ee kacaanka hogaaminaya Allah u naxariistay madaxweynihii ugu waqtiga dheer ee Soomaaliya jaal sareeye gaas Maxamed Siyaad Barre waxa uu ka koobnaa 25 xubnood oo uu gudoomiye ahaa jaal sareeye gaas Maxamed Siyaad Barre haddaba waxa aan doonayaa dhageystayaal inaan markana eego bal taariikhdii ababka qoyska ku soo jeeday Maxamed Siyaad Barre oo aan jeclahay inaan ka soo bilaabo awowgii Barre Cabdulle Yuusuf Barre Cabdulle Yuusuf waxa uu ku geeriyooday dagaaladii sokeeye isagoo madi ah wuxuuna markaa ifka uga tagay 7 nin oo kala ahaa Xasan Barre Cabdulle oo lagu dilay dagaalkii Banaa ee Qararo oo dhex maray dhaqdhaqaaqii daraawiishad iyo xoogay ka soo horjeeday wuxuuna ahaa darwiish Muuse Barre Cabdulle waxa lagu dilay dagaaladii daraawiishta isagoo darwiisha Xilse Barre Cabdulle oo ahaa Janaal Maxamed Siyaad Barre adeerkiisa waxa lagu dilay dagaalkii Talyaanigu ku qabsaday Itoobiya 1936 isagoo ah askari Talyaani Siyaad Barre Cabdulle waxa lagu dilay oo ku dhintay abaartii Miririg 1926 wuxuuna ka mid ahaa kacdoonkii ka hor yimid gumaysigii Talyaaniga Faarax Madow Barre Cabdulle waxa lagu dilay deegaanka Wardheer isagoo socoto ah waxaana loo dilay hababka beelaha Soomaaliyeed isu dili jireen weligood oo ahaa dakana qabiil Maxamed Barre Cabdulle waxa uu ku dhintay dhulka Gedo ama gobolka Gedo Jaamac Barre Cabdulle waxa uu ku geeriyooday abaartii 1938 isagana ugu dambeeyay ilmo Barre Cabdulle Janaal Maxamed Siyaad Barre Cabdulle waxa uu ku dhashay sida loo badan yahay aaga Laasgacal oo ka mid ah deegaanada loo yaqaano Elgaab oo ka tirsan deegaanka Shilaabo ee kirinka shanaad ee dhulka Itoobiya wuxuuna dhashay abaarta 1915 ilaa 16 hooyadii dhashay jaal sareeye gaas Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii kacaanka oo la oran jiray Sheekh Lawrfa Maxamed waxa ay lahayd 2 hablood oo habeen qurax wada geeriyooday waxaana Janaal Maxamed Siyaad Barre la dhashay Faadimo Siyaad Barre iyo Xaliimo Siyaad Barre markii haddaba la jabiyay dhaqdhaqaaqii gudnimadiidka ahaa ee daraawiisha oo inta badan adeeyaashii Janaal Maxamed Siyaad Barre ay dagaaladaasi ku hoobteen waxa qoyska Siyaad Barre iyo qoysas kaleba ay u qaxeen dhulka Gedo markaasi oo ahayd tagayada ah dhabarka ayaa lagu siday Janaal Maxamed Siyaad Barre oo waxa sida hooyadii Sheekh Warfa waxayna geeriyootay isagoo ilmo yara aabihii ayaa dib ugu soo noqday dhulkay hore uga guureen wuxuuna soo gaaray qaybo ka harsanaa
oo reer Barre Cabdullaah waxa uu la kulmay kacdoonkii fallaag ee uu hogaaminayay naayib Cumar Samatar wuuna ku biiray kacdoonkaasi markii Siyaad la dilay oo Maxamed Siyaad Barre uu wiil yar yahay ayaa idarkii jaamac Barre dib ilmo Siyaad ugu soo ceshay dhulkii Elgaab iyo Galguduud oo ay horay u degi jireen dhulkaas ayuu ku soo barbaaray Jaal Maxamed Siyaad Barre waxauna ka qortay askarta Talyaaniga waxaana askariga loogu qoray gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne 1936 wuxuuna ka mid noqday Corpo Sobtia Polizia Africana Italiana waxa uu galay dagaalka Talyaaniga iyo Ethiopia markii la qabsaday Ethiopia waxa loo soo bedelay Xaafuun oo maxaabiista dagaalka ee Ethiopia laga qabsaday oo ka shaqeynaysay warshadihii milaha ee Xaafuun horjoogo uu ka noqday waxaana lagu soo sheegay riyaa baa ku dhacay dabadeedna waxa loo soo gudbiyay Muqdisho markii uu geeriyooday adeeradii kii ugu dambeeyay waa jaamac Barre welina uu yahay inaan da'yar ayadana ku qasabtay inuu dib ugu soo laabto dhulkii miyiga oo uu oday u noqdo agoontii iyo xaasaskii badnaa ee reer Barre Cabdulle waxa uu markaasi guursaday Faadimo oo Muuse Fiqi oo ahaa gabadhii ugu horreysay ee uu guursado abaaraha 2 sanadood oo baan dhulkaas ka dhacay ayuu u xoojinayay agoontii reerkooda isagoo markaasi dhowr iyo 20 jir ah buuna ka noqday mas'uul reer ballaaran waxayna noqotay bilowgii xilqaadnimadiisa kadib waxaa dib ugu noqday askartii intii uu ka soo maqnaa agoomihii ayaa waxaa la dhacay doonyo wax allaale wixii ay reerku haysteen Maxamed Siyaad Barre waxa uu u yeeray nin adeer labaad u ahaa oo wadaad ahaa odayna u noqday xaasaska iyo agoomihii reer Barre lana oran jiray oo Nuur Cali Qaali Yuusuf waxaana Maxamed Siyaad u dhiibay shihnad lacag ah si uu ugu caansho agoomihii waxaana ninkaasi lagu dilay intii uu dhex sii socday markii dib Ingiriis ku qabsaday Soomaaliya dagaalkii labaad ee dunida waxa Maxamed Siyaad Barre loogu diray Kenya waxbarasho markii uu soo dhamaystay tababarkii African Rifles Academy Kenya waxa uu ka mid noqday laanta gaarka ah ee booliska isticmaalka Ingiriiska the special branch of the British Colonial Police oo xilkii uu la wareegay Corpo Sobia halkaana waxa uu ku gaaray darajada ugu sarreysay markii 1949 Soomaaliya loo ogolaaday Talyaanigu inuu gaarsiiyo xornimada waxa Maxamed Siyaad Barre lagu abaalmariyay 2 sanadood oo waxbarasho ah waxa uu galay kulliyadda Carabinieri Police College in Italia kadib markii uu ka soo noqday Talyaaniga waxa uu Muqdisho ku qaatay waxbarasho dheeraad ah oo ku saabsan siyaasadda iyo maamulka waayo kadib waxa uu noqday Soomaaliga ugu horreeyay ee u dalacay sargaal buuxa waxaana laga dhigtay taliyaha biliiska ee gobolka Banaadir 1960 oo la unkay xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu Jaalisiyaad noqday ku-xigeenka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 1965 markii uu dhintay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Daawud Cabdulle Xirse Faynus waxa uu Siyaad markaasi noqday ninka sii hayay xilka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama Commander in Chief of Somali Army inta u dhaxaysay 1960 iyo 1969 waxa dalka ka talinayay dawlad rayid ah oo qaab doorasho talada ku heli jirtay hase yeeshee waxaa jiray xisbiyo aad iyo aad u tiro badan oo ku dhisnaa hab qabiil arrintaasi waxay dalka geysiisay qulub siyaasadeed iyo dabac hanaankii hogaaminta dalka waxay arrintu murugtay markii Oktoobar 1969 15keedii lagu toogtay madaxweynihii dalka mudane Cabdirashiid Xali Sharmaarke magaalada Laascaanood haddaba Oktoobar 21keedii 1969 saddexdii habeenimo oo dambe ama ogtii waa bari ayaa ciidamada qalabka sidaahay waxay isku gadaameen barihii doorka ahaa ee dawladda waxayna xabsiga u taxaabeen badi madaxdii sare ee taliska dalka taasina waxay ka dambeysay markii isaga iyo rag jaalayaashiisa hay geerida madaxweyne Cabdirashiid Xali Sharmaarke markii ay timid ay 3 maalmood u fadhiyeen iyagoo saraakiil fara badan oo military iyo police isugu jirta dalkan iyo wixii laga yeeli lahaa waqtigaasi oo deegaano badan oo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya ka tirsan waagu markuu bariyo dadku ay arki jireen dad si aan aabaya lahayn loo laayay haba ugu sii badnaato gobollada dhinaca galbeedka Soomaaliya ku yaala ee caasimadda 20 sargaal oo xoogga dalka Soomaaliyeed ah iyo 5 sargaal oo booliiska ah ayaa Sarreeye Gaas Maxamed Siyaad Barre ku haagay afgambi aan dhiig ku daadan Broles Revolutionary Council ama la yiri waa towradii cadayd waxay golihii sare ee kacaanka oo markaas isku magacaabay Supreme Revolutionary Council golihii sare ee kacaanka ay ilaaleen dastuurkii dalka waxay xireen golihii shacabka Council of Parliamentarians waxayna manaceen oo joojiyeen xisbiyadii siyaasadda maxkamaddii sarena way tirtireen dalkeena waxaa dib loogu magacaabay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya haddaba sidee bay ahayd xaalka habeenka Isniinta ay talada soo galaysay 22 Oktoobar 1969
maxamed abshir balde waa wariye ka tirsanaa idaacadda BBC-da laanteed afka Soomaaliga waxaana habeenkaasi warkay BBC-du ay sii daysay oo ka hadlaya afgembiga dhiigga ku daadan ee xukuumadda kacaanka ku qabsatay dalka uu ahaa sida tan iyo dareyska ayaa la wareegay xukunkii dalka Soomaaliya inqilaab ay dhigeen oo wararku ay sheegayaan inaysan dib u daadan waxaana ay sameeyeen majliska inqilaab afgembigaasi wuxuu dhacay saaka salaadii saacad waxaana halka ay ku afgembiyeen xukuumaddii Mr. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ee ka samaysneyd xisbiga SYL waxaana 6 maalmood ka dambeysay dilkii madaxweynihii Soomaaliya President Abdirashiid Cali Sarmaake oo dilmada iminka loo hayo in ka mid ah ciidamada Leysa reeriyowga magaalada Muqdisho wuxuu xigtay waray ku dhawaaqeen majliska inqilaabka cusub oo ay sheegeen in afgembiga ay u dhigeen si ay uga badbaadiyaan oo ay uga bixiyaan dalka Soomaaliya waxa ay ku tilmaameen musuqmaasuqa iyo xumaan taliska jamaacadda u baraystay inay taliyaan bando ayaa lagu soo rogay dalka inta u dhaxaysa 4 galabnimo ilaa 10 subaxnimo waxaa kale oo majliska inqilaabku ay ku dhawaaqeen inay u shaqayn doonaan sidii loo baabi'iyo qabiilnimada waxaana la mamnuucay 3 ruux wax ka badan inay jiraan ciidamada militariga ayaa ilaalinaya oo tuban jidadka magaalada Muqdisho waxaana amar loo siiyey inay baaraan guryaha iyo baabuurta xuduudda dekedayaasha diyaaraadka ee dalka Soomaaliya waa xidhan yihiin majliska inqilaabkuna waxay sheegeen siyaasadii dibadda ee dalka Soomaaliya inay warkaasi BBC-du ay sii daysay waxaa dadku ay ku baraareen waagu markuu baryay meel kasta oo taangiyada iyo dababaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku gadaaman yihiin iyadoo xarumaha ugu muhiimsan ee dawladdii rayidka ahayd oo uu ka mid ahaa Radio Muqdisho madaxtooyada iyo Official Governo ay gabi ahaanba yaxriya militariga ciidamadu la wareegeen qodobadii ugu horeysay oo Jaale Sarreeyagaas Maxamed Siyaad Barre oo u jeediyay ummadana iyaduna waxay u dhacaysay sida tan waxayna si gaar ah ahmiyad gaar u siinaysay oo kaga hadlayay waxa ugu wacan afgembiga inay sameeyaan saraakiisha kacaanka hogaaminaysa waxay taariikhda ku xariiqeen in kacaankan noqdo kii saddexaad ee ugu weyna kacaanadii geyiga Soomaaliya ka urtay waxa ay muujiyeen firfircooni waxayna jaangooyeen qorshayaasha siyaasadda gudaha iyo tan dibadda ee dalka dhaqaalaha ammaanka dhanka wax soo saarka iyo sidii arrimahaas dhex looga qaban lahaa waxa ay qaadeen ololayaal waxqabad oo dhan kasta ah nolosha dadkana saameynaya waxaa mudan in la xuso mashaariicdii iskaa wax u qabso oo xubno badan oo dadka Soomaaliyeed ka mid ahay oo aan hore u lahayn xirfado wax soo saar lagu tababaray arrintaasi oo doorin u lahayd dalka sidoo kale waxa dalka laga hirgeliyay mashaariic badan oo sare u qaaday ama ay fuliyeen dadweyne Soomaaliyeed oo xoogooda aqligooda iyo garashadooda isku xiraayeen waxaana 1970 kacaanku uu dhegta dhiga u daray raggii ay afgembiga dhiiggu ku dadan wada sameeyeen rag jeneraal oo ka mid ah oo markii afgembiga dalka ay ku qabsadeen heshiis geesa badan oo ay yeesheen ay kaga hadleen haddii uu yimaado afgembi keena ka dhana waxa laga yeeli doono mid ka mid ah generaaladii saxiixay ayaa afgembigaasi garoodan u ahaa waxaana isaga iyo rag fara badan ay afgembigaasi soo galeen lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee Bilayska 1971 waxayna kala hayeen raggaasi dhegta dhiiga loo daray Jaale Sarreeyo Guuto Maxamed Aynasho Guuleed Sarreeyo Guuto Salaad Gabeere Kadiye Kolonel Cabdulqaadir Dheel 1973 waxaa si rasmi ah loo unkay oo lagu yeeray maalinta afka Soomaaliya
iyadoo dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed oo dhanna si guud ilaa 1973 loogu hirgeliyey barnaamijka hirgelinta afka ama ka hortagga wax akhris qoris la'aanta ogayiga Soomaaliyeed oo dhan loo diray macallimiin iyo gaadiid si dadku ay u noqdaan dad waxna akhriya waxna qora waqtiga kacaanka ka horna dalka Soomaaliya waxa looga hadli jiray wax looga qori jiray qura luqadaha Ingiriiska iyo Carabiga